taliyaha ciidamada nabadgelyada wadooyinka magaalada Kismaayo Kaafi Jaamaca Afcadde oo warbaahinta la hadlay ayaa cabasho xoogan ka muujiyay burburka soo gaaray wadooyinka waaweyn ee magaalada Kismaayo iyo sidoo kale noocyada kala duwan ee gaadiidka ee muddooyinkii ugu dambeysay ku soo badanayay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. waxaana uu sidoo kale taliyaha ka hadlay gaadiidka taariikh la'aanta ee sida sharci darrada ku maraya wadooyinka magaalada Kismaayo kuwaas oo uu sheegay in inta badan shilalka ay geystaan aysan jirin meel loo raaco maadaama aysan lahayn taariikhda lagu kala garto gaadiidka. waxaan taaganahay xafiiska taraafikada degmada Kismaayo hortiisa waxaan insha Allah ma sha Allah ka cabanaynaa wadooyinka oo baabuurta aad moodid inay xadka ka soo baxeen aad uga bateen oo idinka saxaafadda hadda markaad ii soo socoteen waad arkayseen wadooyinku way goonaayeen hal wada oo banaan ma leh magaalada Kismaayo hadday luuq tahay hadday jidcad aad bay dhibaato noogu hayaan waxay ku darsadaan iyagoon taariikh lahayn iyagoon dirawal fiican lahayn waa mas'uuliyad darro badan baa ka jirta laakiin inta badan anagu meeshan ku aragnaba waan ku qabanaa kii qaldanba waan ka riixnaa wadada sida magaalada oo xagga gaadiidka iyo wadooyinka ما شاء الله أنا وغيبت وسارد أمني قال ناي كان قردرا كان قلدم من كل علنا قايد كساو سو كله وعوبها عندي كعد على السمين لا عندي تيين بوبانتاي تيين بوبانتاي ما شاء الله أود إذا ماذا لما هو حق أمني وأوكي لكن عليس أنا نحكين كريم بنا صارن أول بنا حمل كيبو قاضي عاد مده هذا تياض يضا يينني أو يسوودي كريم gaadiidka iyo horumarka magaalada ka socda waxaad moodaa inay celceliskayagii ka soo talaabsatay. taliyaha nabadgelyada wadooyinka magaalada Kismaayo Kaafi Jaamaca ayaa fariin u diray shacabka magaalada Kismaayo waxaana uu shacabka ku booriyay in ay ka qayb qaataan dhismaha wadooyinka magaalada Kismaayo oo xilligan uu burbur xoogan ka muuqdo isagoona sidoo kale fariin u diray mas'uuliyiinta maamul goboleedka Jubbaland ee ay qusayso arrimaha dhinaca wadooyinka ee magaalada Kismaayo. dadka ku dhaqan Kismaayo waxaan ugu baaqayaa ma sha Allah waxaan haysanaa waxaan cidna heli karin wadooyin keenu uma baahna buur la jabiyo dhagax guri walba hortiisa inuu ku tala galo inta kalena inay kaalmayso in laami wada samaysanaan ku talinayaa ma sha Allah waxaan rabnaa insha Allah ma sha Allah wasaaradii hawlaha guud iyo cidii wadooyinka iyo dhammaan dadka reer Jubbaland ba dhammaanteen intaan isku tashano inaan wax ka bedelo insha Allah waxaan noogu daran dokumentiga gaadiidka oo asna u baahan in la iswaafajiyo oo gaadiidkii dekada iyo dalka imanaya iyo ka dibadda ka imanaya gobolada kale iyo dawladaha kale ilaa hadda wali waa ma sha Allah waxaan ku haynaa si Ilaahay weyn raali ka yahay oo deganaanshahan ku kala wadnaa waxaan u baahanahay muddooyinka ugu dambeysay ayaa waxaa magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose ku soo badanayay noocyada kala duwan ee gaadiidka iyadoo markaad eegto wadooyinka waaweyn ee magaalada laga dareemayo mashquul aad u xoogan oo ay sameynayaan gaadiidka taasoo inta badan dadku aysan awoodin in ay isaga gudbaan dhinacyada kala duwan ee wadooyinka. Maxamed Qaasim Cali Waxar TV-ga caalamiga ee SAB magaalada Kismaayo.